أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم شيكada 5 الأسد وابن آوى libaax iyo weer waxa la yiri waxa ku noolaa dhul la oran jiray fiiraad dhidar wuxuuna ahaa dhidar dhowrsoon waxa kale dhulka ku noolaa dhurwaayo dawacooyin weerar isagu dhidarkani wuxuu ka duwanaa dugaagan kale ma uu samayn jirin waxa ay sameeyaan umana uu qiiroon jirin waxyaalaha ay u qiiroodaan hilibkana ma uu cuni jirin waxa la dooday dugaagii kale oo waxay ku yiraahdeen nama farxad gelinayso aragtidaada iyo fikirkaagu aad caadada ka dhigatay gooni markaaguna waxba ku tari maayo sida daraadeed waa inaad nala socotaa oo wixii aanu samayno samaysaa wuu diiday oo wuxuu ku sugnaaday dhaqankiisii wuxuuna ku caanbaxay dhowrsoonaan iyo cibaado badni ilaa uu ka gaadhay meel aan cidina ka gaadhin runsheegnimada ammaana ilaalinta iyo xuma ka dhowrsashadu balse waxaa warkiisii gaadhay libaax meesha boqor uga ahaa dugaaga ku nool wuxuuna jeclaystay warka dhidarka laga sheegayo wuxuuna fariin u diray dawaco inay u tagto oo u sheegto in libaaxu doonayo inuu la kulmo fariintii waa loo geeyay wuuna ajiibay oo wuxuu u tagay libaaxiina wuxuu ku yiri waxaad ka mid tahay iminka wixii ka bilaabma kuwa aan la tashto dhidarkii ayaa yiri haddii uu boqorku sidaa goostay waa inuu ballan qaad ii sameeyaa ballanqaadka oo ah in aan cidina igu xadgudbahayn cidda oo ah cid agtiisa darajo sare ku haysata ama cid iga hooseysa oo doonaysa inay darajadayda iga qaado arrintii ayaa boqorkii loo sheegay oo waxa loo sharaxay waxa uu doonayo dhidarku oo ah inaan lagu xadgudbin uuna boqorku ka digtoonaado wixii war ah ee looga keeno wixii ku cadaada oo keliyana lagu abaalmariyo libaaxii waa yeelay shuruudihii dhidarka wuxuuna ka dhigtay wasiirkiisa maaliyadda wuxuuna ka dhaweystay saaxiibadii kale oo wuxuu ka dhigtay la taliye sare oo qaali ah wuxuuna ku arkay ayaamo yar dabadoodba waxyaalo wanaagsan oo uu la yaabay waxaase arrintaa ka xumaaday oo ay ku cuslaatay libaaxa kuwii ag joogay ee madax iyo shaqaale ahaa waxayna bilaabeen inay xaasidaan oo colaadiyaan waxayna tala ku gaadheen inay dhidarka iyo libaaxa iska hor keenaan oo libaaxu dhidarka ka takhaluso markii ay dhagartaa iyo shirqoolka ku heshiiyeen ayaa maalin libaaxa loo keenay hilib uu jeclaystay oo ka helay wuxuuna amar ku bixiyay in la geeyo kaydka raashinka oo mar kale oo uu dalbado loo keeno hilibkii ayay xadeen oo waxay ku qariyeen godkii dhidarku deganaa meel ka mid ah oo aan cidina daadi karahayn markii maalin laga joogay oo libaaxii u yeedhay hilibkii shalay meesha loo dhigay ayaa hilibkii la waayay dhidarkiina meesha markaa ma joogo kuwii dhagarta maleegay ayaa jooga markay arkeen libaaxii oo ka xanaaqay maqnaanshaha hilibka ayay is eegeen oo mid ka mid ihi yidhi hadal uu ka dhigayo nasteexo oo yidhi innaga waxaa waajib inagu ah inaan waxaan maqallo oo dhib iyo dheef mid kasta ah u sheegno boqorka haba mashaqayso ciddii ay mashaqaynaysee oo ku daray waxa ay soo gaadhay in dhidarku hilibkii geeyey godkiisa kuwii kalena way ku raaceen oo dhegaha libaaxa ka badiyeen beentoodii ilaa libaaxii shakiyey oo tuhmay dhidarkii uuna goostay in loo yeedho markii loo yeedhay ayuu yidhi mee hilibkii aan ku idhi meel ii dhig oo ii xafid dhidarkii ayaa yidhi waxaan u dhiibay bisadabadeedka ah bakhaarhayaha kuwii ayaa yidhi ha loo yeedho isna waa loo yeedhay uu yidhi ileen waysla ogaayeene waxba iima aad dhiibin ee ha inabin kuwii shirqoolka dhigay ayaa yidhi boqor gurigiisa ha laga soo baadho libaaxii ayaa yidhi orda hebel iyo hebelow ka soo baadha markaasay hilibkii meeshii ay geliyeen ka soo saareen oo libaaxii u keeneen libaaxii ayaa waxaa u soo dhawaaday dhurwaaga oo aan hore hadalka waxba ugu darsan iskana dhigayay mid cadaalad yaqaan ah oo wixii dharaar ka cadaada oo qura ka hadla wuxuuna yidhi mar haddii ay dhidarka khiyaano ku cadaatay yaan loo dhaafin waayo haddiiba loo dhaafo cid waliba waxay ku tabadoonanaysaa wixii libaaxu amro
si ay cawaaqib xun u noqoto oo boqorka haybadiisu u joogto waa inaan loo dhaafin mid wax khiyaameeyey iyo mid dembi galayba markay intaasi dhacday ayaa libaaxii amar siiyey dhidarkii oo wuxuu yidhi ka dhaqaaqagtayda waa inoo mar kale dhidarkuna wuxuu hoos ka lahaa maanaa waalan mise cadan baa laga heesaya intaa kadib fadhiyadii libaaxa ka mid ah ayuu yidhi waxaan la yaabanahay ogaanshahayga aan arrimaha wax ka ogaado maxaa sababay oo aan dhagartan wax uga ogaan la'ahay libaaxii ayaa ergo u diray dhidarkii oo yidhi bal soo waraysta way u tageen oo warbaxso ayay ku yidhaahdeen isaguna waa diiday misna fariin been abuur ah ayay la soo noqdeen oo libaaxii u sheegeen intaa kadib libaaxii waa xanaaqay oo wuxuu amray in dhidarka dhegta dhiigga loo daro warkii ayaa gaadhay libaaxa hooyadii waxayna ogaatay in libaaxu arrinta ku degdegay kuwii lagu amray inay dhidarka soo dilaan ayay tidhi maya dib u noqdo oo balkaadsada waxayna u gashay libaaxii oo waxay ku tidhi dembigee dhidarka in la dilo ku amartay libaaxii ayaa sheekadii dabada u qabtay hooyadiis waxayna tidhi war hooyo waa degdegtay oo wuxuu kan caqliga lihi qoomamada kaga tagaa degdeg iska ogaanshaha dhidarka sharaftiisa iyo damiirkiisa waxaa laga yaabaa in saaxiibbada ku qoonsadeen oo ay hilibka gurigiisa geeyeen isagoon waxba kala socon doonayaanna inay kugu diraan oo kugu dhakraan iyadoo weli warkii u wadda inankeeda boqorka ah ayaa waxaa soo galay kuwo ka mid ah kuwii shirqoolka mareegay mise indhaha ayay ka bidhiqbidhiqsiinayaan wuu fahmay oo waa gartay in meesha dhagari ku jirto markay hubsatay oo boqorku arrintii fahmay oo garowsaday in laga gardaran yahay dhidarka ayay ku tidhi waad garatay inuusan waxba samayn dhidarku oo ay shirqool ahayd haddaba ka goo kuwii xumaha maleegay oo abaal marin khadhaadh abaal mare dhidarkana u soo celi darajadiisii iyo sharaftiisii markuu libaaxu ogaaday dembila'aanta dhidarka wuxuu u qaaday sharfid iyo ku kalsoonaan oo wuu u yeedhay waana u cudur daartay wuxuuna ku yidhi wixii dhacay waxay ii kordhisay kalsoonidii aan kugu qabay oo laba jibaaranta iyo malihii wanaagsanaa ee aan kaa qabi jiray oo sii kordhay maalintaa wixii ka dambeeyey waxay ku wada noolaayeen isqadarin iskaraamayn ilaa ay ka dhinteen faallo tusaalahani wuxuu tilmaamayaa ciddii ku degdegta xukunka dadka isaga oo tuhun keliya qaba aanna samayn wax cudurdaarasho leh waxaa kaloo laga faa'iidayaa tusaalahan sida ay u xun tahay xaasidnimadu iyo u quuriwaaga dadka wanaagga ilaah ku mannaysto loo quuri waayo iyo inay xun tahay in dhibaato dad kale loo geysto derajo lagu doonto sheekada 36 الحمامة والثعلب وملك الحسين حمام ضوعو iyo xuur waxa la yiri xamaam ayaa ku dhali jiray geed timreed aad u dheer oo cirka xantaxanteeya ah waxayna ahayd mid baarka sare ee timirta buul adag ku leh mana ay ahayn suurtagal in ay la fuusho cawska ay dhigayso ugxanta hoosteeda inay ku rafaado oo ku dhibaatooto mooyee si kale geedka dhererkiisa awgeed markay buulka dib ku dhisto ayay ku dhali jirtay oo dul fadhii jirtay ugxanta ilaamaa ay ka dilaacaan markay dilaacaan oo baal casgaadhaan ayaa waxaa yimaada geedka hoostiisa daawaco ku goodinaysa in loo soo tuuro shimbiraha baal casta ah haddii kale bela dhici doonto oo ay geedka soo kori doonto markaasay xamaamku iyadoo ooyeysa u tuurtaa dhasheeda ay dhibka badan u soo martay iyadoo arrintu sidaa tahay oo dawacadu u kaltiriso xamaamka carruurteeda oo ay biil isaga yihiin ayaa maalin iyagoo laba baal dilaacsan rabaa ay ku fadhido xamaamadu waxaa geedka soo dul fadhiistay xuurbiyo oo wuxuu arkay xamaamkii oo warwar iyo walbahaar buuxshay oo uu ka muuqdo markaasuu ku yidhi xamaamkow waxaan ku arkaa adoo midab doorsoomee oo arrintu kaa qasan tahay maxaa ku haya markaasay ku tidhi war cantaliyaa dawaca ay ogaatay oo markasta oo aan carruur dhalo intay ii timaado oo i handado
oo igu qayliso oo geedka salkiisa isukay soo taagto ayay odhanaysaa soo tuur carruurta haddii kale wixii dhaca waxba kuma lihi markaasaan u tuuraa haddana waa soo socotaa oo way soo dhowdahay wuxuu yidhi cantaliyaagii markay kuu timaaddo waxaad ku dhahdaa kuu soo tuuri maayo dhashayda ii soo fuul geedka haddaad soo fuusho oo aad carruurtayda cunto waxaan kuu soo tuurayaa kadib anna naftaydan la nabadgelayaa markuu baray ayuu iska tegey oo u duulay haro biyo ku jiraan agteeda dawacadii waa timid markii milaygii soo galay waxayna istaagtay meeshay istaagi jirtay qayladeedii iyo handadaaddeediina waa bilowday xamaamkiina waxay ku jawaabtay wixii cantaliyaagu baray dawacadii waa yaabtay oo waxay tidhi ii sheeg oo yaa ku baray hadalkan waxay tidhi cantaliyaa ayaa i baray dawacadii waa iska tagtay oo waxay aaday cantaliyaagii oo haradii dhinac jooga waxay heshay isagoo taagan waxay ku tidhi dawacadii war heedhe cantaliyaa marka dabayluhu kaaga yimaadaan dhanka midig xaggee madaxaaga geysaa suu yidhi dhankayga bidix ay tidhi hadday bidix kaaga dhuftaanna xaggee madaxa geysaa suu yidhi dhanka midig ama xaggayga dambe ay tidhi oo marka dabayluhu kaaga dhuftaan dhan walba iyo dhinac kasta xaggee geysaa suu yidhi waxaan geliyaa baalkayga hoostiisa waxay tidhi oo sidee u awooddaa inaad baalka hoostiisa geliso ay tidhi bal maad i tustid sidaad u samayso noloshayda kulanka shimbirahow wuu idin dheeraad siiyey alle oo annaga waa naga kiin dheeraad siiyey idinku waxaad gaadhaan saacad gudaheed meel aanan sannad ku gaadhi karin oo waxaad gaadhaan wax aanan gaadhi karin waxaadna madaxiina gelisaan baalashiinna hoostooda oo qabowga iyo dabaylaha kaga dhuumataan idiin hibaynay bal itus sida aad u samaysaan markaasuu geliyey madaxiisii baalkiisa hoostiisii iyadiina waa ku soo booday oo awal horeba waxuma jirine qoorta soo dhufatay oo ka jebisay oo tidhi warkii cadowga naftiisa ku ahaayow talada xamaamka waad heshaa waadna bartaa siday ku badbaado oo ka gaabisaa inaad naftaada badbaadiso ilaa uu ku hanto cadowgaagu intaa kadibna waa googoosatay oo dildillaacsatay faallo waxaa loogu mahmaa qofkii dadka kale wax tusa oo wax bara oo hilmaama oo ka jeesta naftiisa wax bariddeeda alle qur-aanka wuxuu ku yidhi bal eeg suuratulbaqara aayadda 44 dhammaad waxaa halkaa ku dhammaaday sheekooyinkii musalsalka ahaa oo inoo soo socday waana sheekooyin loogu talagalay inay deegaanka iyo bay'adda wax ka beddelaan waa sheekooyin loogu talagalay da'yartu inay dhegaysato waa sheekooyin dabadooda marka la akhriyayo ay ka sharqamayso shimbiro roob da'aya biyo iyo xasharaad cidood waa sheekooyin markaad dhegaysanayso ku geynaya dhul barwaaqo ah waxaa loogu talagalay da'yartu ku barato deegaanka qiimihiisa mahad waxaa leh alle ayaa sahlay inaan soo saaro buuggan waa buug loogu talagalay in dhallinyarada iyo da'yarta iyo cid kastaaba ku ogaato deegaanka faa'iidadiisa waa buug sidaan hore u soo sheegay ku geynaya dhul barwaaqo ah waa buug loogu talagalay carruurta Soomaalida casriga ah ama waxa loo yaqaan bedtime history sheekada la akhriyo waqtiga hurdada waa buug qof kasta oo wax bartay uu u baahan yahay inuu carruurtiisa habeenkii markuu seexinayo ku seexiyo waxaa soo saaray xasan maxamuud dhiilood وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم نبض